بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي كسو دوادا chapter كويو تبنات national income كاسو أتكو براندونتان سيدا وشقيو دخلق جود ودنك أما سيدا وشقيو والله حسابيو إسلامر كان أرضي وفكر وقاضا لها waxsoosaarka iyo dakhliga guud ee wadanka. Inta aynu chapterkan ku dhex jirno, ardaygu waxa uu baran doonaa micnaha uu leeyahay national income iyo erayo badan oo la xiriira. Sidoo kale waxa uu baran doonaa siyaalaha loo cabiro national income-ka iyo waxyaalaha saameynta ku yeesha. Cashirkeeni oo bilowdayna waa kana. casharka koowaad ee chapterkeenana waxa aynu ku baran doonaa macnaha ereyga national income iyo erayo badan oo xiriir la leh. Marka uu casharkani dhammaado, ardaygu wuxuu awood u yeelanayaa in uu xusuusto macnaha ereyga national income, isla markaana uu sharaxaad ka bixiyo waxa loo yaqaano circular flow of income oo ah habka dakhliga ay isku dhaafsadaan waaxyaha kala duwan ee dhaqaaluhu. casharka qaybta u horeysana waxaan ku qeexi doonaa ereyga national income. run ahaantii ereyga national income marka la adeegsanayo siyaalo kala duwan ayaa loo adeegsadaa. si caam waa loo adeegsan karaa, si specific ama khaasana waa loo adeegsan karaa. laakiin inagu waxaan u adeegsan doonaa sida caamka ah ayaynu adeegsan doonaa. macnaha ereyga national income-na waxa uu noqonayaa dakhliga ay helaan dad wadan degan ama wadan ku nool marka ay wax soo saaraan. ereyga national income waxaa lid ku ah personal income oo macnihiisu yahay dakhliga soo gala dadka shakhsiyaadka iyo qoysaska iyo ganacsiyada yaryar ee ay leeyihiin qoysasku leeyihiin. Okay, waxaa jira erayo badan oo la adeegsado marka national income laga hadlayo ama marka dakhliga wadanka soo gala laga hadlayo. erayadaasi mid walba waxyaalo gooni ayuu tilmaamayaa ama meelo gooni ayuu xooga saarayaa. erayada la adeegsado waxaa ka mid ah GDP oo loo soo gaabiyey gross domestic product. gross domestic product waxaa loola jeedaa qiimaha suuqeed ee dhammaan badeecadaha iyo adeegyada laga soo saaray wadan gudihiis waqti go'an. marka iyadoo la adeegsanayo GDP-ga la qiyaasayo wax soo saarka wadankaas, waxaa la tixgelinayaa waxa wadanka xuduudihiisa laga soo saaray. erayada kale oo la adeegsado marka laga hadlayo national income-ka waxaa ka mid ah ereyga la yiraahdo GNP. GNP-du iyadu waxay u taagan tahay gross national product, waana qiimaha suuqeed dhammaan badeecadaha iyo adeegyada ay soo saareen dadka wadanka u dhashay, ha joogaan wadanka gudihiisa ama ha joogaan wadanka banaankiisa. Simple haddaan si kale u dhigno, waxaan leenahay dadka wadanka u dhashay hantidoodu waxa ay soo saarto muddo sanad gudihiisa ayaa waxa la yiraahdaa GNP. marka la doonayo marka in national income-ka la qiyaaso ama wadanka wax soo saarkiisa marka la doonayo in la qiyaaso, haddii la adeegsado measure-ka GNP, waxa aynu eegayna waxa weeye dadka wadanka u dhashay waxa ay soo saareen, halka GDP-gu uu eegayay dadka wadankaas ku dhex nool waxa ay soo saareen ama ha u dhashaan ama yeysan u dhalan. sida caadigaana GNP-ga waxa laga keenaa GDP-ga ayaa laga keenaa oo lagu daray waxa loo yaqaano net foreign factor income oo macnaheedu yahay dadka wadanka aan u dhalan ee wadanka gudihiisa jooga waxa ay soo saareen oo laga gooyay dadka wadanka u dhashay laakiin dibadda jooga. For example, haddii shirkad Soomaali leedahay ay ku taalo wadan dibadda ah, wixii ay soo saarto iyo waxa la kala goynayaa shirkad ajnabigu leeyahay oo wadanka joogta waxay soo saartay ayaa la kala goynayaa, kadibna waxa inoo soo baxaya waxa loo yaqaano net foreign factor income. Okay, GNP-ga laftigiisa waxa laga sii dhiraanirin karaa waxa loo yaqaano NMB oo u taagan net
national product. Net national product-gu waa qiimaha wax soo saarka waddankaas oo laga jaray depreciation-ka. Sida caadiga marka dadku ay wax soo saarayaan waxay adeegsadaan hanti sida gaadiid, warshado iyo wixii la mid ah. Hantidaas ay adeegsadaan waxa ku dhacaya wax loo yaqaan depreciation ama qiimo dhac ayaa ku dhacaya. qaybtana waxaan ku soo gudbinaynaa waxa uu yahay circular flow of income. Circular flow of income hadda wax yar ka hadalno waxaan leenahay waa sida ay hantida isugu gudbiyaan qaybaha kala duwan ee dhaqaaluhu. Inagoo adeegsanayna circular flow diagram waxaynu muujin karnaa xiriirka ka dhaxeeya qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha. Circular flow diagram waxaan leenahay waa model dhaqaale ama waa tusaale dhaqaale oo muujinaya sida ay isku dhaafsadaan qaybaha kala duwan ee dhaqaaluhu, fundiskii iyo lacagihii iyo resources-kii sida isku dhaafsadaan. Okay, circular flow of income inagoo adeegsanayna waxaynu dhaqaalaha u kala qaadi karnaa qaybo kala duwan ama sectors ayaynu u kala qaadi karnaa. Marka u horeysa waxaynu dhaqaalaheena u kala qaadinaa two sector economy, dhaqaale ka kooban laba sector. Sectorka la yiraahdo householdska, qoysaska iyo sectorka la yiraahdo firmska. Si aynu u ogaano ama aynu u qiyaasno wax soo saarka waddankana waa inaynu ogaanaa xiriirka ka dhaxeeya ama sida ay resources-ka isku dhaafsadaan shirkadaha iyo familiyada. Sida caadiga dadka familiyada ama qoysaska waxay haystaan waxa loo yaqaan factories of production, wixii wax lagu soo saaray. Factories of production kiina waxay siiyaan oo ka iibiyaan shirkadaha ay ka iibiyaan. Shirkaduhu taa beddelkeeda waxay siiyaan lacagtaas oo ku imaanaysa qaab kira ah ama ku imaanaysa dulsaar ama ku imaanaysa mushahar iyo wixii la mid ah. Marka ay shirkaduhu factories of production ki ay isticmaalaan oo ay adeegsadaan waxa ay soo saaraan goods and services. Waxay soo saaraan badeecado iyo adeegyo ay soo saaraan. Badeecadihii iyo adeegyadiina waxa ay siiyaan householdska ay dib ugu celiyaan. Householdskuna way ka gataan oo waxay bixiyaan lacag ay bixiyaan oo dib ay shirkadii uga gataan. Marka dawladda lagu soo biiriyo dhaqaaluhu wuxuu noqonayaa three sector economy ama dhaqaale ka kooban saddex sector oo wax soo saar. Dawladdu sida caadiga shaqooyin aad u fara badan ayay qabataa ama waxyaalo badan ayay qabataa, laakiin waxaynu soo koobi doonaa insha Allah taala waxaynu ku soo koobaynaa saddex activity oo muhiim ah oo ay dawladdu qabato. Saddexda activity waxa ugu horeeya dawladdu waxay canshuur ka qaadaa iyo qoysaska ay canshuur ka qaadaa. Shirkadihiina waxay ka iibsataa badeecadihii ayay ka iibsataa. Sidoo kale shirkadihii canshuur ayay ka qaadaa. Sectorka saddexaad marka waxaan leenahay waa dawladduna waxay qabataa activity kala duwan oo amare canshuur ayay ka qaadaa labada sector oo kale oo marka saddexaad labada sector oo kale waxay ku celisaa. Tusaale ahaan shirkadihii waxay ka iibsataa badeecadihii, qoysaskii waxay ka soo qaadataa factories of production ki, bulshadii waxay siisaa adeegyadii kala duwanaa bay u qabataa. Maxaan ku yiraahdaa wadooyinkii bay dhistaa, iskuulaadkii bay dhistaa, caafimaadkii bay dhistaa. Sidoo kale wax loo yaqaan transfer payment ayay samaysaa oo ah inay dadkii caawimaad siiso sida scholarships iyo wixii la midka ah. Marka uu dhaqaalaha ku soo siyaado adduunku waxaan leenahay oo aynu adduunka tixgelino waxaanu leenahay dhaqaalahaas waxa loo yaqaanaa four sector economy. Okay, interactionka ama xiriirka aynu la leenahay adduunka kalena wuxuu noqonayaa laba mid inaynu wax u dhoofino ama inaynu wax ka soo dhoofsano. Marka aynu wax ka soo dhoofsano adduunyada kale waxaa lacagta bixiya qoysaska. Lacagtaasna waxa loo yaqaanaa import expenditure. Marka aynu wax dhoofinana shirkadihii waxay helayaan lacag ayay helayaan. Lacagtaasna waxa loo yaqaanaa export receipts ayaa la yiraahdaa. Circular flow diagram ku sidaas ayuu shaqeeyaa. Haddii aan wax yar soo koobano waxaan leenahay sida caadiga dhaqaaluhu wuxuu ka kooban yahay afar sector. Afarta sectorna waxa ay isdhaafsadaan waxyaalo kala duwan. Qoysasku waxay haystaan factories of production ki, shirkaduhuna waxay soo saaraan goods and services ki. Sidoo kale dawladdu canshuurna way qaadaa, adeegyadii kala duwanaana way qabataa. Adduunka kalena waxaynu la leenahay xiriir ah inaynu wax soo dhoofsano oo aynu markaa lacag siino adduunkii kale ama inaynu wax dhoofino oo markaa adduunkii kale uu lacagina siiyo. Intaasna waxaan uga gudbinaa circular flow diagram-ka iyo sharaxaadiisa.